بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داويال كسو دوادا warka kooban ee telefishinka qaranka Soomaaliya xiligan idin kaga imaanaya xarunta dhexe oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Allah u naxariistay wariye Mawlid Maxamed Sabriye oo ka tirsan warbaahinta qaranka oo maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho ayaa xalay geeriyooday. Mawlid Maxamed Sabriye oo ahaa saxufi rugcada ah oo in muddo ah ka howlgalaya warbaahinta qaranka iyo qaar kamid ah warbaahinada sida gaarka loo leeyahay. sidoo kale Mawlid Maxamed Sabriye ayaa waxa uu kamid ahaa soo jeediyaasha barnaamijyada iyo wararka. kulan looga doodayo ansixinta heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka dalka oo dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa maantay lagu wadaa in golaha labada aqal ee dowladda uu ka dhaco. labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa maantay oo Sabtida 26 September yeelanaya fadhi wadajir ah oo ay uga doodayaan heshiiskii siyaasadeed ee doorashada oo ay 17kii bishan gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasi oo la doonayo inay ansixiyaan baarlamaanka. mudanayaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la gaarsiiyay fariin ogeysiis ah oo ah in ay maantay 9 ka soo wada qayb galaan fadhi wadajir ah oo baarlamaanku yeelanayo si ay uga doodaan heshiiska siyaasadeed ee doorashada ayaa qeexaya habraaca doorashooyinka dalka ka dhacaya, waxaana qodobada kamid ah uu sheegay in la horgeynayo baarlamaanka si ay uga bedelaan go'aanka sharciga ah oo tixraac rasmi ah u noqon kara geedi socodka doorashada. bulshada ku nool degmada Hobyo oo bilaabay in ay si wadajir ah u dhisaan xarumaha danta guud oo degmadaasi ku yaala. xilli maamulka iyo bulshada degmada Hobyo ay u soo jeesteen iskaashiga la xiriira ka shaqeynta amniga iyo nabadgelyada degmadaasi ayaa waxa maamulka iyo bulshada degmada Hobyo waxa ay bilaabeen inay si isku tashi ah ay ku dhistaan xarumaha diimeed oo kamid ah dib u dhiska masaajidka weyn ee jaamac degmada Hobyo kaasi oo dhisan muddo 107 sano ah. Maxamed Axmed Sahal oo kamid ah odayaasha degmada Hobyo xilligii dowladii Qaranka mar soo noqday gudoomiyihii degmadaasi ayaa ugu horeyn warbaahinta qaranka u sheegay sababaha keenay inay dumiyaan masaajidka iyo taariikhda uu dhisnaa masjidka ayaa waxa intaasi ku daray in dib u dayactir lagu sameyn doono masaajidka. qaar kamid ah culimo diinka iyo waxgaradka deegaanka ayaa iyagana codsaday in laga qayb qaato dhismaha masaajidka iyo xarumaha kale ee la doonayo in lagu barto culumta diinta Islaamka. shil diyaaradeed oo sababay dhimashada 22 arday oo bartay sida loo dooliyo diyaaradaha. dalka Ukraine waxaa ka jirta baroordiiq loo sameynayo 22 arday oo ku dhimatay shil diyaaradeed jimcihii ka dhacay dalkaasi. diyaaradan oo ah A620 ayaa ku burburtay markii ay ku degaysay garoonka, waxaana markiiba qabsaday dab xoog leh oo keenay holac aan loo dhawaan karin. ardaydan ayaa ahaa kuwa baranayay duulimaadka sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi Ukraine. warkii koobnaa daawadayaal aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya xilligan inta ayuu naga dhan yahay. anigoo Deeqa Maxamed Axmed ayaa saakeedina socodsiinay.